سيبان كتب وسيبها إنت سريبان كقرن مقعاق سوغن مقعاق سوغن الصبا سدحن سريبان كقرن مقعاق سوغن مقعاق سوغن الصبا سدحن daawadayaal waa maxay xiriirka ka dhaxeeya Diraac iyo Salma Jacli xagoose maray xagoose ka baxay jacaylkii Kamaal iyo Salma Jacli haddaba warbixin dhameystiran idinka hayna daawadayaal halkani waa channelkeen ansixinta wararka haday tahay boqoshadii ku gooraysa soo booqato fadlan subscribe noo saar muuqaalkan hadda daawanaysidna fadlan noo like gare waayo like wax naga saacidaysaa in uu muuqaalkeenu meel dheer gaadho isla markaasina halkaan la rabnay gaadho daawadayaal daawadayaal waa maxay khilaafka siijida kale ee baryihii dambeeyay haystay baraha bulshada gaar ahaan barta YouTube-ka ee u dhaxeeya Kamaal iyo Salma Jacli haddaba tan iyo markii ay Salma Jacli ka soo hayaantay dhanka iyo Kamaal agtiisa ay u soo hayaantay dhankan iyo magaalada Hargeysa iyo ariga Somaliland waxa uu galay hakis xiriirkoodii iyo farxadoodii ay mar walba wada farxi jireen haddaba markii ay si kala tagayeen labadoodani ayaa waxa qalbiyadooda aad looga dheehanayay daawadayaal in ay aad isu diidiyeen inay kala tagaan labadoodu balse daawadayaal waa ay soo kala tageen ugu dambeynna Salma Jacli waxa ay ka soo degtay Hargeysa muddo yar markii ay Hargeysa joogteen waxa ay u kicitantay dhanka iyo Puntland gaar ahaan caasimadda Puntland ee Garowe waxaana ku soo dhaweeyay YouTuber aad u tiro badan oo ka mid ah wiilka loo yaqaan Diraac iyadoo muddooyinka ugu dambeysay muuqaalo la sameeynayay isla markaasina YouTube-ka u kala kicinaysay wiilka lagu magacaabo Diraac balse arintani waxa aad uga xanaaqay isla markaasina wax laga xumaado ku tilmaamay Kamaal oo isagu la xajecel ka qabay Salma Jacli balse daawadayaal Salma arintaasi uma joojin waa iska sii wadatay muuqaaladeeda iyo farxadda ay la qaadanayso YouTuberada reer Garowe gaar ahaan Diraac haddaba daawadayaal sida baryihii dambeysay ka wada arkayseen barta YouTube-ka ee Kamaal waxa uu raashin ka soo bixinay isla markaasina ka soo hadlayay Salma Jacli iyo Diraac haddaba waxay sidaas soo ahaataba waxa arintani aad uga xanaaqay isla markaasina qalbigiisa ay dhaawacday Kamaal isagoo mar walba hadalla xanaf u muuqda hawada u soo mariya Salma Jacli oo ka xanaaqsan sida ay uga tagtay iyo in ay la sameeyso Diraac muuqaalo haddaba daawadayaal idinkuna waad ka qayb qaadan kartaan oo fikirkiina ay nagu soo qori kartaan barta comment-ga daawadayaal waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like gareysaan waayo like-tu waxay naga saacidaysaa in uu muuqaalkeenu meel sare gaadho isla markaasina daawadayaal waxaan ka codsanaynaa in aydan ilaawin muuqaalkan inaad sii share gareysaan waayo share-tu waxay naga gaarsiinaysaa meel sare muuqaalkeena waxa la doonayaa in uu gaadho gabi ahaanba dadka u baahan in arrinta laga jahil saaro